بسم الله الرحمن الرحيم كسود هذا محا عصب يمانته ومضل كلا إيا وقت كلا محا ما تكون سنة هاي شدتك خبرة دولة دور شوين كصوص عضانا كان الشقيني دورية طبعا كسنة يقدم بيه دور شوين كي داعي سومالي لان هذا ما توحن دول استاجينا دور شدا سومالي لان إيا وحا صوص عضا وحن كلنا دول استاجينا دولة صوماليا أورنتي ينا فعل بدن جيستي هذا نقطة قيبتي ديارها هي هذا نقطة قيبك أو برشة كتم سمعنا لنا صوص صارت برشة بدن عبد الرحمن ورسمة وحمر كاس مملكية هي أو مركز إن بدن هو جاميني وحيانا لها سيفل سوسايتي جارها وحمر كاس مدح كي هي حرمتها ديمقراطية ده يمام الوداجة عبد الرحمن سولو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خضر آدي بانك هجم هذا عنليا برنامج كان يقوم ارتقاطي محا عصب يا حفيزك استوديوها محا عصب إن عبد الرحمن إن دورشة اليوم يسوع صوتها قلت قول ما لسوق بينيا مشاركين مدحوينها قول ما يدورشوا دعيسا بسم الله الرحمن الرحيم سيدا كوعد جدول كدورشة أي سو صارين كمشي كدورشين كسومالي لان دورشة مدحتوية iyo doorashadii ururada oo isku sidkan waxay dhacaysaa 13 November 2024 waa sanadkan aynu ku guda jirno sida jadwalka ku cad markaa waxa liiskii musharaxiinta madaxweynaha saddexda xisbi waxay soo gudbinayaan ugu dambeyn 13 bishan aynu ku jirno ee sagaalaad way doorashadii kale muddo la kordhiyay dad badanna waxay leeyihiin oo markaa u dhun daloolaa doorashadu hadana dib u dhacaysaa taayada ka war ilaa imika anagu xogtaan hayno khadrow commissionka doorashooyinka xogtu la wadaagayo civil society qaybaha kala duwan ee daneeyaasha doorashooyinka waxaan la yiraahdo ilaa imika xogtaas waxay noo sheegaysaa in commissionka doorashooyinka uu diyaarsan yahay inay doorashadii qabtaan waqtigeedana qabtaan maxay hayto wax kasto looga baahnaa in la diyaariyana ay diyaar tahay hadii ay tahay lacagtii hadii ay tahay maxay hayto ay farsamooyinkii doorashooyinka oo kale inay diyaar yihiin wax allaale wax carqalado maanta commissionka uu sheegay hortaagan doorashooyinka inay qabtaan waxa ugu dambeysay khadrow waxa loo yiraahdo maxay hayto biometric systemkii ama isha buudeeda cadaymihii lagu galay doorashooyinka commissionka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranka iyo ururaduba waxay go'aan ka gaareen mida in lagu qabto 6 caasimadood 6 gobol ee waaweyn systemka oo uu hirgalay taasoo noqonaysa 76 56 codbixiyayaasha la diiwaan geliyay inay joogaan caasimadaha 6 gobol ee Soomaaliland 6 gobol marka leedahay Sool oo la saanood oo ahayd meel yana weyn haba yaraatee u malayn maayo sanadkan inay tagayaan baalad boqosku inay tagayaan taas marka ma ku jirtaa Sool waxa uu ah maxay haytolay caasimad ku xigeen waxa uu ah Aynabo ayaa xarunta guud ee gobolka Sool xagga Soomaaliland marka laga maamulayo marka wax carqalada halka kama jiraan waa goob degan oo goob doorasho waa goor amniya marka gobolka Sool waxa mataladeedii haysataa magaalada Aynabo haysta Cabdi Raxmaan waxa jirta doorashada madaxweynaha waxa wehelisaa urura weheliya bartaafa la guud naga sidii socota waxa weeyaan dastuurkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland baa dhigaya in 10 sano dib loo furo hanaanka xisbiyada iyo ururada marka waxa weeyaan tartan baa loo qabanayaa dhammaan imika marka laga hadlayo saddexdii xisbiye jiray iyo ururadii cusbaaye la diiwaan geliyay tartanka processka dheer soo maray ee inta badan socday imika tartan bay galayaan ururada soo baxay iyo saddexdii xisbiye jiray tartanka ay galaan saddexda urur ugu codka bata ayaa noqon doona November wixii ka dambeeya saddexda xisbi qaran ee matali doona 10 sano soo socda dalka taamicneedu waxa weeyaan sidii doorashadeena ugu dambeysay 2021 ay laba doorasho isku sidkan u dhaceen tii baarlamaanka iyo golaha deegaanka qofka muwaadinkana imika wuxuu xaq u yeelanayaa inuu laba jeer codeeyo mar uu u codeeyo doorashada madaxweynaha marka labaadna uu codeeyo ururka dooriyo mustaqbalka inuu ka dhigo xisbi waa urur ilaa imika tiradayna hayna waxa weeyaan waa 6 urur iyo saddexdii xisbiye jiray ma malaynaysa dad badan inay ku wareeri doonaan u malayn maayo waxa loo baahan yahay kaliya in la sameeyo waxa loo yaqaano civic education ama wacyigelinta doorashooyinka commissionka doorashooyinka iyo ururada wadaniga ah ama ururada maxalliga ah ayaa loo baahan yahay in dadka iyo saxaafadda qaranka iyagoo iskaashanaya inay wacyigelin badan siiyaan dadku si aanay ugu dawaqin ama muran uga gelin
habka ay doorashada u marayaan. cabdiraxmaanow intaasoo urur intaasoo saddex musharax waxay u baahan tahay dee wax aada u fara badan wacyigelin badan bay baahanta commissionku ilaa hadda iyadoo waqtigan ka dhiman tahay wax wacyigelin lama sameeyeen. walaal khadarow doorashadii ka horreysay ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka ayaa ka hawl badnayd, ka culays badnayd, ka musharaxiin badnayd, ka tacab badnayd. doorashada madaxtooyada waxaa tartamaya waa 6 qof, 3 madaxweyne u tartamaya iyo 3 golo deegaan u tartamaya, madaxweyne ku xigeen u tartamaya iyo ururada iyadana gaar waxaan tobanba gaadhin ay markaa codeynayaan. u malayn maayo culays badan jiro, laakiin waxaan aaminsanahay sida jadwalka doorashada guddida doorashooyinka u soo saareen wacyigelintii waxay furmaysaa imika oo ah ma 12 ama 13 bisha markay soo xareeyaan liiska musharaxiinta ay soo xareeyaan kadib waxa loo geeriyay wacyigelintii ama ahaato tiimiga la tagayay ama tii saxaafadda dawladda la marinayay ama tii saxaafadda gaarka la marinayay dhammaanba waxa la doonayaa dadku waxa jira baahi weyn oo oranaysa laba doorashooyinkii ugu dambeeyay dalka lama sameyn dadkan lama gaarsiin wacyigelin ku filan. commissionka waxaan ka codsanaynaa sanadkan inay fidiyaan wacyigelinta oo ay gaarsiiyaan dhammaan gobollada dalka oo dhan. runtii doorashadu wax badan baa ku gemahaaman oo ah siyaasaddii kale ee geopoliticskii kale ee geeska africa. january somaliland waxay qaaday tallaabo aada u weyn oo markaas ictiraafi karaysa etoobiya MOU-gii la oran jiray. bal MOU-gii xagga horta ku dambeeyey hortay anigu war kama hayo MOU-ga ku dambeeyey anigu laakiin waxaan ka warramayaa inay tahay arrimaha kuwa ku gadaaman doorashooyinkeena soo socda inay qayb ka tahay heshiiska aynu la galay Ethiopia. waayo wadamo badan aynu jaarnahay raalli kama aha manay soo dhaweynin dhaqaale ahaan, farsamo ahaan iyo dowlad ahaanba may soo dhaweynin. waxaa ka mid ah wadamadaasi Soomaaliya aynu ognahay ay ka gashay, waxaa ka mid ah Djibouti baa ka mid ah, waxaa ka mid ah maxay ahayd tolay arrimo badan oo la xiriira badda cas iyo maxay ahayd tolay meesha la yiraahdo Bab al-Mandab oo u baahan oo aynu ognahay Yemen waxa ka socda aynu ognahay. marka xaalada amni oo ku gadaamni awgeed cabsi weyn baa laga qabaa doorashadeena in arrimahaasi saameyn ku yeeshaan. Soomaaliya Somaliland waqti dhow may wada fadhiisan mis Soomaaliya laakiin aad iyo aad bay u diiday in la saxo heshiiskaas iyagoo leh tallaabo ka mid ah sida madaxweynaha xasan sheekh yiri tallaabo ka mid ah Soomaaliya bixin mayno. Somaliland la imika 30 sano kaligeed u taagnay caqabada kale markaa soo fuulay haddana ah diyaaradihii iyo wixii la halmaan. caqabadaha Soomaaliya ay Somaliland ku keeni karto maxaa ka mid ah maadaama oo ay haysato iyadu magacii iyo dawladnimadii Soomaaliyeed ay weli isticmaalayso adduunkana aanu weli laga dhaadhicin in dawladdii Soomaaliyeed ay fashilantay 1990 wixii ka dambeeyay. waa caqabado badan oo u baahan tixgelinteeda runta markaan ka hadlo aynu u baahannahay dawladda Somaliland inay iyaduna la timaado tallaabooyinkii ay uga diyaar garoobi lahayd si ay u badbaadiso sumcadda iyo karaamada dawladnimadeeda. tallaabooyinka ilaa hadda ma cadda mana muuqdaan marka laga shaqeynayo diyaaradihii marka laga shaqeynayo maxaa Somaliland la yaala. waxa weeyaan taasi waa mid u taalla siyaasadda guud ee qaranka, waa mid u taalla maxay tolay hay'adaha ku shaqada leh maxay ahayd tolay dhinac walba. laakiin adigu nin wax badan og baart wad ogtay inaan wax tallaabo qaadin maxaad u malaynaysaa inay caqabadahaas keeni karaan qaadi karto. Somaliland waxay qaadi kartaa tallaabo kasta oo Soomaaliya ay isku daydo inay cunaqabatayn dhinac kasta ha noqoto ama bad ha noqoto ama beri ha noqoto ama cir ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama humanitarian aid ha noqoto. Somaliland waxa looga baahan yahay inay la timaado istiraatiijiyad cad iyo qorshe cad oo ay kaga hortagayso at least yana oran 100% kaga hortagayso bal aan raadaba 150 ay kaga hortagayso wanay Somaliland la timaado. Somaliland waxa loo baahan yahay dadka wax garadka ah aqoon-yahanka ah dibay iyo gudadba jooga in loo yeero talo la weydiiyo qorshe la weydiiyo oo markaa ay Somaliland la timaado istiraatiijiyad cad oo ay ku difaacayso sumcadda iyo karaamada shacabkeeda iyo dalkeeda. marka waxa weeyaan resource baynu haysanaa dad badan oo resource baynu leenahay. media laga soo weerarayaa, dhaqaalaha laga soo weerarayaa, wax laga soo weerarayaa, humanitarian-kiiba laga soo weerarayaa ama caamooyinkiiba laga soo weerarayaa, wax laga soo weerarayaa any kind of ay u arki karaan inay sharciyadii iyo eligibility-ga haystaan. marka waxaynu u baahannahay
inaguna taa bedelkeeda inaynu diyaar garowno waxa weeyaan ficilka lama sugee ficilka waa laga hortagaa waxaana loo yaqaanaa wax jira wax la yidhaahdo proactivity marka inaad adigu sometimes samayso gardarro siyaasadeed waxay ku horseedaysaa wax lagu soo gaarsiin lahaa in lagaga istaago marka Somaliland waxay u baahan tahay inay wax dhaqdhaqaaqso gardarro siyaasadeed u baahan inay wax dhaqdhaqaaqso wadogtahay election baa ku gadaama Somaliland waxyaalahaas oo dhan lama oga lama dareensanaa talaf mana caqabad ahayn waxa weeyaan exactly khadra waa dhab waxaad sheegaysaa waa dhab Somaliland waxay u baahan tahay waxyaalo badan baa jira dagaal badan baa jira howlo badan baa ku socda Somaliland waxay u baahan tahay doorashada ay qabsanaysaa waa doorashada ay u baahannahay maanta cidii doonta ha guuleysatay ama mucaaradkii ha guuleystaan ama muxaafidku ha guuleystaan waa doorasho ay dadku u baahan yihiin dalkuna u baahan yahay adduunkuna u baahan yahay soo eegayo halkaa wixii ka dhacaa inay noqon doonto jiha cad oo Somaliland u dhaqaaqi doonto 10 sano ama 5 sano ee soo socda cabdiraxmaan waqtigu runtii uu gaaban yahay kelmadda ugu dambeysay aan doonaya ku weydiiyo Soomaaliya qalin bay haysaa action ay qaaday maxaad maanta action soo socda kale maxay noqon karaa inuu xishagina heshiiska la saxiixayo labada arrimood ee u baahan in la isbarbar dhigaa ama laga diyaar garow wax weyn hadalka madaxweynaha iyo dagaalka Soomaaliya waa laba arrimood oo u baahan in la miisaamo arrinta Somaliland ku dhaqaaqayso talaabada ku dhaqaaqayso oo ah in heshiiska saxiixdo heshiiska caadiga marka hore safgarad buu ahaa in safgaradka heshiis loo bedelo taasi markaa waxay u baahan tahay Somaliland dagaal baa ku soo socda mid xuduudaha ha noqoto mid siyaasadeed ha noqdo mid military ha noqdo wadarkaysano siyaasadda bariga Afrika way isbedelaysaa Masar baa soo gashay marsan ciyaarta balaad 10 kun oo ciidan bay keenaysaa 10 ka ciidan ay Masar keenaysaa waxay loyal u noqonayaan dawladnimada iyo systemka Soomaaliya ka jira waxaan si toos ah uga marqaadanayaan dawladda Soomaaliya taa bedelkeeda waxa weeyaan Ethiopia waxay warwar ka qabtaa ciidamada Masaarida ee soo degaya agteeda maadaama oo webiga Niil ay Ethiopia ka samaysatay biyo xidhan weyn taasoo biyihii tagayay webiga Niilka waxa la yiraahdaa 96% waxa ka faa'iideystay dawladda Masar dawladda Ethiopia 3% bay ka faa'iideysataa Sudan waxay ka faa'iideystaa 1% wax ka yar markaad arkayso Masaarida iyo Ethiopia isku hayay webiga isticmaalka in Soomaaliya maadaan in dagaalkii inaga iyo Soomaaliya uu noqonayo Somaliland ay noqonayso dhinaca Yemen bay naga xigtaa dhinaca Djibouti oo raalli ka hayno dhaqaalahan u diidan baa jirta dhinacan Ethiopia oo Masar u soo agtay marka xaalad adag baan galaynaa xaaladaada waxaan u baahanay Somaliland inay ka diyaar garowdo oo ay samayso qayladaan amni qayladaan siyaasadeed oo dadka wax garadka elite-ka la isku keeno dalka si tala iyo tusaale loo weydiiyo way cabdiraxmaan waqtigaadna sitay aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxaanu ku rajaynaynaa khayr waxaanu rajaynaynaa xarunta dimuqraadiyadda maamul wadaagga oo markaas aad ka socotay iyana guul baanu rajaynaynaa haddaba barnaamijkii waxaanu ku soo xidhaynaa cabdiraxmaan oo aad iyo aad ugu mahadsan oo markaasi runtii in badan imanka fahanleeyey haddii Soomaaliya ay tallaabo qaado Somaliland maxay ku dambeyn doontaa cunaqabataynta ma sii socon doontaa ma gaari doontaa waxyaalaha manciishada ibni aadanka ah haddii Soomaaliya iyadoo qaranka haysana ay markaasi diyaaradaha xidho badda xidho Somaliland maxaa uga hawl yaala waa barnaamijkan ku eegaynay Somaliland iyo doorashada Somaliland ku socotay anigoo khadar dir ayay indaadihinayay intaan barnaamijka la kulmayno waxaan leeyahay amaana Allah wa amaana rasuul wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh